بسم الله الرحمن الرحيم وبين نستعين على أمور الدين والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مدحوينها جمهورية فدرالك صوماليا محمد عبد الله فرماجو مدحوينه حاف كاس شريفك مدحوينه كيانك هيرشابيل دمان أصحابته كله labada gole ee dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada reer galmudug madaxweyne ku-xigeen iyo golayaal iyo shacabba baada saxaafadda kulligii waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka salaamu alaykum warahmatullahi salaanka bacdi waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta cadaado oo lagu qabtay xaflad caleemasaar madaxweynaha aan u malay inuu dawlad goboleedyada ugu da-da weynaa حاف وعارون تانينا أقول وين وحنا نسلاها على مسار كيس ومعنا بدنا صبينا يا قلب خلافات كأيو وحيالها كتير يورن أنا تاني أنا صاح علم دون هدي لهينا وحقول وين إلا وذا تشوفه وأنصارك على لاين بنت الآن يقلب ذو بمالك اللي تتهول كل جوه macnaha looga jeeda maxay tahay hadduu fula yahay hadduu geesi yahay hadduu bakayl yahay raganimo u xalaaliya waxaa ku jira waa inay bannaanka taala isma qarin karo maanta xaaf waad garanaysaan markaa raganimada ku jirta intay laegta soomaaliya waxaa la yidhaha shidada iyo nabadda iyo waxtarka iyo gobonnimada iyo guushu intaba mudug bay ka bilaabataa waxaa nasiib daraa maalmahan reer mudug gadaal bay u socdaan waxaa ugu daran hadda geel booliya maalin bay isku laayaan geel booliya markaan u jeedo qolo walba waxay tidhaahdaa baadi buu ahaa uu naga soo lumay qolada kalaa qaadata markiisi horeba geel anuu iga soo tegay baadi buu ahaa intaa haddaan ka gudbo waxaan is leeyahay xafladdan caleemasaarka ee maanta intaasoo soomaaliya isugu timid waa midii iila weyneed een arko waxayna saamaynaysaa waxay leedahay tusaale fiican oo nabadeed baa ka muuqata madaxweyne xaaf waxaan kula dardaarmayaa maanta mas-uuliyadda aday ku saaran tahay walaalaha dhuusamareeb jooga ee ahlusunna waljamaaca qofka la rabo inuu u taro u tanaasulo la hadlo gogosha dhigo waa adiga odaynimadeediina waad leedahay adaa lagaa sugaya adiga cabdiweli maxaa cali gaas arrinta gaalkacyo jufaad u tihiin ehel baad u tihiin odayaal baad u tihiin akhyaar baad u tihiin waxaan rajaynaya iyaduna inayna soo noqnoqon doonin madaxweynaha dawladda federaalka waxa uu galmudug ka qabto unbaa isagana qiimeyn badan u noqon doonta waxaan rajaynayaa dawladda federaalka waxaa looga baahan yahay sidan oo kale marka madaxweynuhu uu meel yimaado oo meel kala tago oo istaydyada ku wareego wuxuu dareemi karayaa macnaha waddanka ka jira baahida taalla horumarka jira waxay dadku u baahan yihin waxay dadku fakerayaan laakiin madaxweynuhu haddii xamar lagu ekaado war kalaa meesha ayaa weliba annagu dawlad goboleedyada dawladda federaalka waxaan ku xamarnaa indhahooda xamar buu ku jeedaa waxa ay sameeyaanna waxa la yidhaha igu tiro iga tir sababtaa maanta oo dhan waxaa riboodka u gelaya waa xamar wixii joogay waxa uu arkaa ciidanku arkaa waa muqdisho ka jooga shaqaaluhu waa muqdisho baarlamaanku waa muqdisho waa wixii federaalka xamar joogay waxaa laga yaabaa inay idinka daboolan tahay baahida banaanka ka jirta sidaa daraaddeed dawladda federaalka waxaan odhan lahaa bal madaxdu ha badisa safarka isteydyada ay ku tegayso qodobka labaadna ha samaysteen oo waxaa ku soo kordhiyeen oo isteyd walba guri dawladda federaalka leedahay intii laga dhiso golaha wasiirada ha ku shireen
xubnaha joogtay ee baarlamaanku ha tageen dadku ay isu furfurnaado oo hala iska warqabo madaxweyne xaaf waxaan rabaa inaan kuu sheego Cadaado joogitaan bay kaa rabtaa iyo lugaha inaad dhulka ku hayso Cadaado dhibka soo maray wuxuu ahaa 45 beri markay maalin ka dhimanta in la tago haddana laga tago deyn badan oo horena waa laga qabay reer Cadaado waxay u baahan yihiin dawladda federaalka inay timaado ay joogto oo socodkeedu ku bato dawlad goboleedka iyo madaxweynaheedu inayna ka bixin shaqada la qaban karo mar haddayna caasimadii rasmiga inay ku meel gaar ahayn ay ku meel gaar tahay waxay u baahan tahay waxay sii goosato loo kordhiyo in deyn lagaga taga saxma maanta Jubbaland caasimadii ay lahayd shabaab baa gacanta ku haya waa Bu'aale laakiin wixii aan heli karay Kismaayaan ku dhisnay reer Kismaayo berri markaan ka tagno midhaan uga tagnaanayna Cadaado midho looga tagaa hesho waxaa ilaa hadda ii muuqda intii xubin iyo xeeb ay joogtay rinji baa lagu kordhiyey markaa wax badan baa idin sugayay aad baad u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa socodkuna inuu bato waliba reer Mudugga socodkaa lagu badiyahay inaadna marti qaadaan waddada la maro gaalkacyo iyo loo kala socdo Cadaado Garow iyo Cadaado la isu soo maro socodkaas maanta haddii Cabdiweli Gaas iyo adiga iyo madaxweynihii waddada aan isla qaadno wax badan baa isbedelaya gaalkacyo lugha lagu taga. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.